Dekedda magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu ku soo xirto markab dagaal oo dowladda Turkiga ay leedahay kaasi oo noqonaya maraakiibtii ugu horeysay ee hawlgalka Turkiga ee la saxeexay in 10 sano uu sugo amniga iyo badaha Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa saaka lagu wadaa inay tagaan dekedda magaalada Muqdisho si maraakiibta Turkiga iyo saraakiisha la socota ay ugu soo dhaweeyaan magaalada Muqdisho. Waxaana si toos ah u bilaabanaya hawlgalka Turkiga oo degaya xeebaha Soomaaliya. Markabkan ayaa la sheegay in uu sido qalab lagu rakibayo xeebaha dalka oo ilaalinaya dhinaca amniga iyo waliba diyaaradaha sahanka sameeya doonyo iyo agabyo kale oo muhiim ah oo hawlgalkan Turkiga ee Soomaaliya muhiim u ah. Waxaa suuragal ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta tago dekedda magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa la hakiyay dhammaan shaqooyinkii ka soconayay gudaha dekedda magaalada Muqdisho iyadoo ganacsatada lagu wargeliyay inay sugaan oo ay joojiyaan shaqooyinka dhinaca ganacsiga ee kaga xiran dekedda magaalada Muqdisho. Wadooyinka muhiimka ee agmara dekedda magaalada Muqdisho ayaa saaka lagu waabariistay iyadoo oo xiran mar hore ayaana la qorsheeyay in arrintan la joojiyo maadaama maraakiib sida xamuul culus ay ku soo xiranayaan dekedda magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa heshiis dhinaca iskaashiga difaaca la gashay Turkiga kaasi oo lagu ilaalinayo xeebaha Soomaaliya iyo sidoo kale iyadoo oo shidaal laga qodayo dalka. Sanadka 2025 ayaa dowladda Turkiga waxa ay sheegtay inay bilaabayso qodista shidaalka Soomaaliya. Sidaasi waxaa shaaciyay wasiirka tamarta dowladda Turkiga. 10 sano ayuu joogayaa hawlgalka Turkiga ee Soomaaliya sida lagu saxeexay oo ay saxeexeen Soomaaliya iyo Turkiga. Hase ahaatee muddadaasi ayaa waxay dowladda Soomaaliya ku dhisan doontaa ciidankeeda badda sidoo kalena waxay ku soo saari doonaan shidaalka dalka ku jira. Wixii warar ah ee qodobkaasi ku soo kordha mar walba kala soco nuxurka dhacdooyinka. Haddii aad ku cusub tahay baraha iyaga bulshada fadlan daawada nagu soo biir dhinaca Facebook iyo YouTube-ka labadaba.